casho sharaf si heer sare loo soo agaasimay ujeedka casho sharafkan uu ahaa dhiirigelin loo sameynayay ciyaartooyda kubadda cagta ee degmada Dharkeenle kaas oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan kuwaas oo ay horkacaysay gudoomiyaha ururka haweenka ee maamulka gobolka Banaadir, gudoomiyaha arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir, gudoomiyaha degmada Dharkeenle Abuukar Axmed Cadow, gudoomiyaasha isboortiga 17 degmo qaarkood oo hoolka lagu casuumay ayaa waxay ka qabsoontay xarunta Peace House degmada Hodan ee gobolka Banaadir. ugu horeen gudoomiyaha degmada Dharkeenle ayaa hadal kooban kaga jeediyay gudaha hoolka Abuukar Axmed Cadow. runtii maanta in koobkii 2019 ee Dharkeenle ku guuleysato oo halkan dabbaldegiisa lagu dhigayo waxay noo tahay farxad weyn oo marna waaxide aan xasuusan karo daqiiqadihii goolkii ugu dambeeyay boortiiriga uu qabanayay aan xasuusan karo sida macnaha xaaladdeeda ay noqotay iyo maalintii ugu horeysay ee aan bilownay tartanka hamigeena sidoo ahaa runtii waxaan dhihi karnaa riyo oo maalin cadday ah oo rumowdo waaye tan. waxaa sidoo kale asagana goobta ka hadlay taageere dhiiga degmada Dharkeenle Dalmar Cadow Maalin kaasoo aragala dadka fara badan ee hoolka ku sugnaana ee u muujinayeen dareen galgaceel. Jabaahir Barqab gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Banaadir ayaa ayadana ku nuuxnuuxsatay in Dharkeenle ee hiil iyo hol ee u soo martay in ay koobkan ay ku guuleystaan. waxay tiri waxay la tahay habeen taariikhi qoyso habeen aad u weyn habeen aan isleeyahay aniga rabeyna ku hadlo codka hooyada Soomaaliyeed ee adduunka dacaladeeda joogta hooyada Soomaaliyeed ee geelaha hoostooda joogta hooyada Soomaaliyeed xilli walba iyo waqti walba meel walba ku sugan tahay waxay adduunka u jeceshahay ilmaheeda oo qurux badan iyo wadankeeda oo nabada. marka waxaaniga marka farxadiya inaan caawa goobjoog ka noqdo koobkan aadka oo qurux badan leh oo dhan walba ay Dharkeenle kaga dhigto meesha ka eegtada ay tahay Dharkeenle yaa qaaday guusha cilin weydiinaysi marka Dharkeenle hambalyo. ugu dambeyntii waxaa hadalkaas soo gunaanuday gudoomiyaha arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Basmo Caamir Shaketi waxaana hadaladeeda ka mid ahaa munaasabadan quruxda badan casho sharaftan xafladan munaasabadan loogu talagalay guusha ay gaartay degmada Dharkeenle aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa. hambalyo hambalyo hambalyo. Dharkeenle way dadaashay degmooyinka gobolka Banaadir waxaa loo baahan yahay heerkay maanta gaartay cid walba gaarto koobkan ay tuugo noqday waxaan isleeyahay deeg waa beri u noqon lahayd qiimaha hadda ee leeda ama lahaayeen sababtoo ah inay degmooyinka gobolka Banaadir ay gaaraan waxay tahay dhiirigelin u diyaargaroobayaan dhalinyarada ku nool degmooyinka isboortiga. sidaad ogtihiinba degmada Dharkeenle 8 sano ka hor ayaa ugu dambeeyay laakiin sanadkan waxay samaysay waa lagu dareemi karaa in kubaddii ay u diiday goosheedii ee ilaaliyeen ayay samaysay. taasi taariikh lama ilowaan ah aana ka dhicin magaalada Muqdisho ayay ka mid ahayd in ciyaarta maalinta bilaabatay ilaa habeenkii finaalka ee rigoorada lagu kala badiyay in goosha saas loo difaacdo nasiib Dharkeenle kaliya iska leedahay inay tahaan dareemi karaa. degmada Dharkeenle oo dhiirigelinta cashada sharafta loo sameynayay ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli 8 sano kadib ay hanteen tartan kubadda cagta degmooyinka ee gobolka Banaadir.